السلام عليكم أهلا بخير waxaa ka hadlaynaa shanta luqadood oo jacaylka tan ugu dambaysan aad iyo aad u dhageysa insha Allah taala luqada koowaad waa dhageysiga way qurux badan tahay qofka isjeceshiin inaad isdhegeysatiin oo time aad gelisid qofkan wuxuu rabo inaad dhageysatid oo si wanaagsan uga jawaabtid tan labaad waa faaniska luqada labaad qofkan waa inuu wuxuu ku fiican yahay u sheegtid meeshana ka qurux badan meeshana saan ka tahay hal kelmado wanaagsan oo aad dhahdo qof aad jeceshahay oo isla nooshihiin oo xaaskaaga ah masuujkaaga ah waxaa laga yaabaa maalintiisa oo dhan iyo wuxuu kuu qabanaya in wax ka bedesho marka in la isfaaniyo ama la isi sooreeyo ama waxyaabo qurux badan la isku sheego luqadaha jacaylkay ka mid tahay tan kale wax qaban waa luqada saddexaad qofkan inuu wax kuu qabto ama dan aalaheed kuu gaaro ama guriga adoo jiran oo guriga kula qabto awlaada kula qabto wax alle iyo waxay noqoto dadka qaarkood qaasatan raggaa u badan wax qabadka waxaa waaye macno ka fasiraya jacaylka uu qabo wax siiska oo luqada afaraad raggaana ayaana kusii fiican waxaa laga yaabaa waxyaabo kale inuuna ku fiicnayn laakiin wax kasta uu kuu quuro nimanka raganimada ugu fiican dheh waa nimanka gabdhahooda ka dadaala ee wax u qurxiya ee wax siiya ee maarata wax siiskooda aan waxba u arkin waa nimanka ugu wanaagsan wax qabad iyo wax siis hadduuna ku fiicnin ka fikir ninkaasna guursatid please hadal macaan meel ku geynahay male iyo dhegeysi luqada wax siiska nimanka wax siiya gabdhooda wax u quura wax weyn maaha wax kasta oo maarata wax yaroo ka farxiyo bishaada samee markii lacagta kuu soo aada samee maarata jacayl weyn ay dhalinaya gabdhuhuna hadday guriga joogaan ay shaqaynaynin cunto wanaagsan oo karisay keeg macaan oo samaysay maarata lasania baasta ah oo samaysay abuu gifti ama waxaana maanta gifti kaaga dhigay ama casariyahan gifti adiga iska leedahay waaye dareensii shaqada aa qabatid iitaanka gelaayo inay noqon karto wax farxad gelin ah maaha wax qisab ay tahay in loo sameeyo hawa arkay shaqada guriga marka wax yaroo qurux badan samee maaragta dheh waa giftidahay ilaahuma sariirtiisa si gooniya uu gogashadoo dhehde waxaan quruxda badan maanta sariirta ku sameeya as a gift for you caqli bas iga tahay anyways luqada shanaad oo jacaylka waxaa waaye luqada taabashada waana luqada ugu weyn maayo taabashadana ha u malayn arrimihii waaweynaaye nimankii naagaha ka dhexeeyey qofka xataa ilmahaaga markaa habsiisid oo taabasho samaysid ilmahaagu jacayl aa ku abuureysa marka intaa lays ag fadhiyo yay noqonaysid laba qof oo aan waxba iska gelin oo wada sheekeysanayo daa'iman taabashada qofka meel uun inaa ka taabatid qofku kaamuu noqonaya wuxuu soo xasuusanaya wuxuu jecel yahay wuxuu soo xasuusanaya wuxuu uu rabay marka experiment la sameeyaa rabaa inaa idinla sheegareeyo experimentigaa raba inaa idinkala hadlo waxaa laga sameeyey yurubka 7 cunug aa dhasheen waxaa la dhaha yaan la taabanin taabashada baniaadanka ilmaha waxay u geynaysaa ro in la fiiriyo waxaa la ogaaday ilmihii aan la taabanon cuntada bas la siinaya say u dhasheen 7 maalmood gudahood ay ku dhinteen marka yaa la nixin ilmaha way dhimanayaan isma dheheenin wax weyn iyo cilmi cusubaa la bartay oo taabashada ku saabsan taas waa hadda wadamada qaarkood ama yurubka maraykanka iyo wadamo badan lagu leeyahay skin to skin ilmaha loo sameeyo cunuga qandhaysan daawo xataa ha siinin cunuga qaawi adiga jirkaaga meel ka qaawi cunugaaga qabso qandhadii oo dhan way ka jabaysaa marka caafimaadka jacaylka wax kasta ina true skinka ee biniaadanka isku siiyaana la ogaaday marka qofaa jeceshahay oo isqabtiin oo guriga isla joogtiin daa'iman human toucher lalaho maaha inaa excessive noqonayso obsessed ku noqonayso qofka taas qofka waa kaaga cararaya laakiin waqtiyo wanaagsan oo laysla qaato daa'iman some sort of a human touch maaragtay wejigoo kale oo qofka ka saraxday tintoo kale waa wax human touchka meelaha ugu fiican oo dareemo lagu gudbiyo waa nin iyo naagba sidoo kale jirkaaga meel kamid inaa qofka ka taabatay jacayl badan oon kelmadaha ku dhihi karin ood wax siis ku samayn karin oo dhegeys ku samayn karin oo qofka hadduu xataa qofka xanaaqsanaa moor wuu degaya intuu xanaaqsan yahay xanaaqa ka dejinaysa macaleesh saani waxay yihiin saani saan raalli ka noqo yacni qofka meel ka taago calmnesskaaga iyo degenaanshadaada qofka waa siin karta marka shantaas luqo qofka yaqaana wuu yaqaanaa qofkaanan aqoonina ka faa'iideyso dadka luqadahan maaragta waa lagu kala duwan yahay luqadaha jacaylka qofkan wuxuu jacayl u arko iyo isagu soo gudbiya baro qofkan wuxuunan ahayna ka dhex raadin waa bari kartaa noocyadaana ku fiican tahay laakiin noocyadan kuma fiicnada can you please wax kasta adduunka waa la baran karaa cilmina qofna kumayna dhalanin sidoo kale adigana isfiiri jacaylkaada say u gudbisaa waxaa very confusing dhinaca nimanka iyo naagaha waxaa jira gabdho jacaylkooda si qayle ah usoo gudbiyaan haddaa maqan tahay hadday kuwa haysto xanaaq maaragta intaasoo garan kusoo waca intaasoo kale yeen wiilashu waxaas ka xanaaqin waxay u malaysaa that's the way to express
xanaaqaas jacaylay ka tahay maahan qofkan ku qayri iyo inay wax ku qasaaraysa in adiga kugu qasaaraysa ma oga marka abaayo sida si ka wanaagsan wax iigu sheego dhani waxaas xasan ku mashquulsanaa wax alle waxay tahay hadda maxaa kugu qabtaa marka nin raga gabar xanaaqeed iyo qayladeed iyo hadalkeed wax weyn kama dhiga kama daba qaato maaragtay just arrinta simple ka dhig hay maxaanto maxaa hadda dan raali noqo I will do this I will do that situationka dhan kaamay ka dhigaysaa qofku jecel niyadiisa u dejinaysaa gabdhahana sidoodana haddii marar badan lagu raali geliyo arrinta ha ku fogaanin qofkani ma aha maaragtay dhagax ma aha maruu xaaladan dhan wada dhibsanaya marka xuduudaha layskuma dhaafo garo maaragtay mararka qaarkood hadalkula wuxuu taraa not all the time qofkan wuu kugu nici karaa dabcigaas oo kaleeto labada qof way isku nici karaan marka shanta luqadood mideen qabtaa mideena kaa maqan commenti aynu ku sugaaya